gaar loo leeyahay waxaana loo fuliyaa qaab sharci iyo qaab sharci darro labadaba iyadoo la bartilmaameedsanayo meelo kala duwan sida ururada aan dawliga ahayn cilmi baarayaasha iyo ardayda iyo sidoo kale howlgallada internetka ee sii kordhaya arrimaha dhammaantood waxaa loo adeegsadaa habkan dhinacyada badan leh ee ururinta macluumaadka sirdoonka Beijing xaqiiqdii waxay leedahay awoodo iyo tirooyin ay ku daba gasho istaraatiijiyadda wax kasta oo Shiinuhu dhistaa waxa ay ku xiran tahay basaasnimo taasoo u horseedaysa Mareykanka inuu khasaaro 12 trilyan oo dollarka Mareykanka Shiinuhu waxay badiyaa raacaan ujeedooyinka dhaqaalaha warshadaha iyo tiknoolajiyadda kuwa oo siin doona wasaaradaha dhaqaalaha iyo farsamada ee Shiinaha faa'iidooyin tartan inay helaan Shiinuhuna waxa uu adeegsadaa basaasnimo si uu u shido oo u iftiimiyo ama shidaalka ugu sii shubo qaababkiisa dhaqaale ha ahaadaan qorshayaasha iyo fikradaha la soo xaday ee diyaaradaha Mareykanka iyo Ruushkuba sameeya iyadoo oo ay ku jiraan diyaaradaha F-35 iyo F-22 amaba dhanka farsamada gantaalaha dhammaan arrimahaas oo dhani waxay yihiin kuwa ay sirdoonka Shiinuhu soo qaabeeyeen oo soo ururiyeen macluumaadkooda iyo tiknoolajiyadda ay ka samaysan yihiin dabeetana ay ku dabaraan waxqabadkooda iyo wax soo saarkooda howlgallada sirdoonka waxay khatar weyn ku yihiin amniga qaranka Mareykanka iyo barwaaqayntiisa dhaqaale Master Mike Orlando kusimaha agaasimaha xarunta amniga iyo ka hortagga sirdoonka ayaa waraysi u dhawaan bixiyay waxa uu ku sheegay in basaasnimada Shiinuhu ay Mareykanka ku kacdo inta u dhaxaysa 200 bilyan ilaa 600 milyan oo dollar sanad walba taasoo inta badan ka timaada hantida aqooneed ee la xado ama waxa loo yaqaan hal abuurka fikirka taasina waa waxa socday tobannaankii sannadood ee la soo dhaafay taasoo macnaheedu yahay in Mareykanku ku dhaceen khasaare 12 trilyan oo dollarka Mareykanka ah muddada ay Shiinuhu basaasnimada ku hayeen ee ay hal abuurkooda xadayeen dhammaan muwaadiniinta iyo hay'adaha waxa waajib ku ah inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga Shiinaha oo ay ku jiraan deeqaha waxbarasho iyadoo ardada deeqaha waxbarasho loo diray ee taga dalalka reer galbeedku ay hayaan shaqada sirdoonka Shiinaha iyo Ruushkubana waxay qaataan qorshaha loo yaqaan dawlad guud ahaanteed ama wadan iska dhan taasoo ku wajahan amniga qaranka wax walibana miiska ayay saarayeen mana jiraan wax la mamnuuca shirkadaha jaamacadaha iyo shakhsiyaadka ayaa laga filayaa inay caawiyaan dawladda waxa looga baahan yahay sharciga amniga qaranka iyadoo lala kaashanayo ciidanka iyo adeegyada sirdoonka ayaa waxay tahay in la caawiyo nidaamka kasta oo suuragala taa macnaheedu waxa weeye ficil ahaan marka ardayga Shiinuhu yimaado waxbarashada Mareykanka waxa laga rabaa inuu la wadaago baaritaankiisa ama xog kasta ama farsamo kasta oo laga yaabo inuu galaangal u yeesho ama si uu u helo inuu u gudbiyo adeegyada sirdoonka ee Shiinaha waxa kaloo laga rabaa inuu kormeero oo qiimeeyo muwaadiniinta ay walaalaha yihiin oo iyaguna wax ka bartaan isla macadka isla markaana soo sheego habdhaqan kasta oo khilaafsan wixii lagu soo ballamay taa beddelkeeda ma jiro qorshaha loo yaqaan dawladdan ama wadadan oo ku yaala Mareykanka dhabahaantii shirkadaha Mareykanku waxay haystaan ikhtiyaar ay kula shaqayn karaan militariga iyo sirdoonka laakiin looma baahna oo kuma khasbana inay sidaas sameeyaan tanina waa cillad istaraatiiji ah laakiin sidoo kale waa faa'iido hay'adeed iyo anshaxeed oo gaara marka loo eego howlaha basaasnimada Shiinaha ee dhanka dhaqaalaha gaar ahaan xatooyada ay ku hayaan fikradaha iyo farsamada hal abuurka ee gaarka u ah cid ayaa si Shiinuhu u dhaafo Mareykanka waxay u baahan yihiin inay sii wataan kobocooda dhaqaale iyo inay farsamo ahaan ka sareeyaan Mareykanka iyo dalalka galbeedka intooda kale laakiin halka ay ku tiirsanaan lahaayeen hal abuurka Shiinuhu waxay door bidayaan inay xadaan tiknoolajiyadda dabadeedna nuqul la mid ah ay ka samaystaan Shiinuhu wuxuu bartilmaameedsadaa oo xadaa tiknoolajiyadda gaadiidka sida xisaabinta tirada farsamada robotiska tiknoolajiyada iyo shabakadaha kala duwan inkastoo ay jiraan dalabyo militari oo ku aadan dhammaan tiknoolajiyadda haddana qiimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha ayaa si la mid ah muhiim ugu ah Shiinaha iyaga oo doonaya inay noqdaan awood weyn
shiinuhu sidoo kale waxay adeegsadaan barnaamijyo karti xirfadeeda si ay ugu soo jiitaan hibada ugu sarraysa, laakiin marka dusha sare laga eego barnaamijyadani waxay inta badan u baahan yihiin inay ka xadaan tiknoolajiyadda shirkadihii hore. master orlando waxa uu leeyahay haddii aad dib u jalleecdo 20kii sannadood ee ugu dambeeyey waxaanu aad uga walacsanayn wuxuu ahaa beegsiga iyo bartilmaameedsiga adeegyada sirdoonka ee dowladda Maraykanka. si aanu u helo haddaba xog qarsoodiya ama bartilmaameed tiknoolajiyadeed waxa aanu aragnay 20kii sannadood ee lasoo dhaafay waa isbeddelka dhanka cilmi baadhista iyo horumarinta hantida aqooneed. waxaa xusud mudan buu yidhi in laamaha sirdoonka Maraykanku ay ururiyaan sirdoonka shisheeyaha sida wasaaradda amniga ee dowladda Shiinaha oo kale, laakiin su'aasha ah sida sirdoonka loo adeegsado ayaa iyaduna waxay noqonaysaa wax kala soocaya labadooda. Shiinuhu ma aha kamana waabtaan ururinta xogta sirdoonka iyo inay xadaan siraha si ay u horumariyaan ujeedooyinkooda dhaqaale una ilaaliyaan amniga qarankooda. marka aynu dhinac iska dhigno buu yidhi fikradaha Joe Biden iyo hadaladii buuqa badnaa ee Donald Trump, runtii tartanka u dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanku mar dambe uma roonaanayo Maraykanka, maxaa yeelay Shiinaha ayaa si wax ku oola u hareereynaya Washington oo curyaamin kara. si kasta oo madaxweyne Joe Biden uu u sii wado qorshihii madaxweynayaashii hore ee Maraykanka qaarkood isla markaana uu hoggaansamayo istiraatiijiyadda ka dhanka Shiinaha oo uu Biden ballan qaaday in Beijing aanu u ogolaan doonin inay noqoto hogaamiyaha caalamka iyo dalka ugu qanisan uguna awoodda badan, oo halkaana uu sheegay booskaasina uu yahay mid ay Maraykanku ku sii jiri doonaan. haddana warbixin ay soo saartay mareegaha mas-uulka ka ah dowladda Maraykanka ee US Craft waxay ka hadashay awoodaha qarsoon ee Shiinaha oo kuwaasoo curyaamin kara dhaqdhaqaaqa Maraykanka dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba. inkastoo warbixintu tilmaamayso awoodaha sii kordhaya ee Shiinaha ee dhinacyo kala duwan, haddana waxay si gaara u tilmaantay inay jiraan 2 siyaabood oo gaara oo ah cududda ay ku tiirsan tahay Beijing ee ay kaga hortagi karto Washington. Jamie Dimon oo agaasimaha guud ee gudoomiyaha bangiga weyn ee JP Morgan ana uu yidhi in kasta oo aynu rajaynayno horumar degdega oo laga gaaro dhaqaalaha Maraykanka kaasoo socon kara ilaa 2023, haddana mustaqbalku waxa uu inoo soo sidaa warxun. hogaamiyaasha Shiinuhu waxay rumaysan yihiin in Maraykanku uu hoos dhaca ku yimi. Mr. Dimon warbixin uu ku qoray warqadda sanadlaha ee saamileyda shirkadaha Maraykanka wuxuu ku sheegay in Maraykanku waqtiyo adag soo maray waagii hore, laakiin maanta Shiinuhu wuxuu arkaa buu yidhi Maraykanku inay ka luntay aagaga tiknoolajiyadda, kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada, dadkeeduna ay kala jajabeen oo ay carqaladeysay siyaasaddu, sinaan la'aanta jinsiyadda iyo dakhligana aan loo sinayn, oo Maraykanka wuxuu u arkaa waddan aan awoodaynin inuu isku dubarido siyaasadaha dowladaha ee dhinacyada maaliyadeed, lacageed, warshadeed iyo sharciyeed, hab isku xidhan oo lagu gaari karo ahdaafta qaranna aan maanta lahayn. Shiinuhu waxa uu si wax ku oola u hareereynayaa Maraykanka oo uu ugu hareereynayaa labadaa hub isagoo adeegsanaya. Shiinaha ayaa awood xoog leh waxa uu ku leeyahay 2 aag oo halis ku noqon kara Maraykanka, sida lagu sheegay warbixinta ay soo saareen Responsible Statecraft. 2 kaadh ee ay Shiinuhu ku aamusan karaan kuna hareereyn karaan Maraykanka waxaa ka mid ah haysashada dekedaha caalamka iyo konteenarada adduunka wax lagu qaado, iyo keenista waxyaabaha dhulka dhifka ku ah oo iyaguna ay muhiim u tahay oo keliya qaybta tiknoolajiyadda macluumaadka. awoodda Beijing ee suuqa dhulalka dhifka ayaa ka dhigtay buu yidhi inay mid adag oo aan macquul ahayn dalalka kale sida Maraykanka, Kanada iyo Australia inay dhisaan oo maamulaan silsiladaha sahayadooda u tartamaya. hanjabaadihii ugu weynaa ee Shiinuhu ay ku muujiyeen awooddooda waxay ahayd buu yidhi oo ay soo ifbaxday markii Trump uu kula murmay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping cashuuraha sanadkii 2019, xilligaas oo Shiinuhu aan rasmi ahayn ugu hanjabeen Maraykanka inay jari doonaan waxyaabaha ay u dhoofiyaan Maraykanka, iyadoo aga fara badan oo ka mid ah wax soo saarka Shiinaha aana loo geeyay Maraykanka.
ay joogsanayaan qayb badan oo ka mid ah wax soo saarka Maraykanku. sida laga soo xigtay sahanka juquraaf siyaasadeed ee Maraykanka ee 2020 Shiinuhu wuxuu soo saaray 8% macdanta dhulka dhifka ku ah. hubka labaad ee Shiinuhu waa khadadka maraakiibta Shiinaha ee ku hareeraysan Maraykanka. Caroline Bartolom oo ah gudoomiyaha guddiga dib u eegista dhaqaalaha iyo amniga ee Maraykanka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ugu yaraan 3 meelood laba ka mid ah dekedaha konteenarada badda ee ugu waaweyn ay leeyihiin oo ay maamulaan Shiinuhu ama ay taageeraan maalgashigooda. taa waxaa ka jira buuli boosteejooyinka dekedaha waaweyn ee Maraykanka ee Los Angeles iyo Seattle. sanad ka hor mas'uuliyiinta shirkadaha maraakiibta ee dowladda Shiinaha China Ocean Shipping Company oo ka mid ah khadadka